السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو عصب ولاشين رومي جنال أو إن لا البيت بيتكم والبنت بيتكم دمانتي ميلو بقى دعوانا السنة هدي مالن كوتا مالن وعن هدي هبين كوتا هبين وعن هدي سوح كوتا سيدي ذو كلنا سوح وناكسن أو عن مكولية كوسا دو جنال كهدي تمركي كوجوريسي وأنا سوب وغنيسي وعن سي شرف لك أقعد سنين الناس جنال كا سبسكرايب نوسات هذا سبسكرايب إيسارتنا نو ليجري ليكت نوصار ليكت فيديو ياش ليكت حق وقليتان أصحابي أيام جنالكين waxaa moodaa inuu dib u dhac xoog leh ku yimid janaalka leegta noo saaray ina si shargaree gabar walbaba ha iigu shargareyso asxaabteeda facebooka meel walba iigu shargareeya si uu maaragtay janaalkeena waxa uu haysta uu u sii daayo janaalkan waxba ka siiya maanta waxaan wadaa maanto tala ayaan wadaa la yaab leh gabadh ayaa tala soo dhibatay asxaabta kamid ah gabadhan taladeedu way soo qortay waxay tii ruumiyay haleela ila soo tali ayay tiri marka maadaama ay tahay sheekadan maaragtay de wax maaragtay tala gooni ay sahayn oo public tahay waxaan jeclaystay inaan gabadhan halkan uga talada aan uga baxsho inunkuna aan wixii tala siin kartaan aasisaan maadaama ay tahay family cusub gabar cusub reer cusub ay yihiin reerkan oo reer muddo badan isqaba ay ahayn horta mid baa inii sheegay intaana talada gelin baa inii sheegay guurku isku tanaasul iyo sabar ayuu u baahan yahay guurka haddii aan tanaasul iyo sabar uusa imaanin yacni gurigaas ma sii joogayo haddii laisku fiirfiirsado ma sii joogayo haddii waxyaalo badan oo yaryar oo mushkilada la xalin karo haddii aadan ka tanaasulina reerkaas ma noqonayo reer dhismaya ma noqonayo hadalka yaana inagu badin gabadhan waxay tiri abaayo ruumi ila tali waxaan haystaa hal gabar oo 4 jir ah hal sano ninkeyga waan kala maqneen haddaan isku nimid bay tiri 3 biri oo kaliya ayaan wada joognaa maanta telefoonkiisa ayaan furay whatsappka waxaan ka helay bay tiri naag uu la kulmi jiray intuu maqnaa waana carooday intuu ninkeygu maqnaa dabcan gabadha ninkeeda safar ayuu ku maqnaa intuu safarka ku maqnaa ayuu wuxuu sii samaystay lamaane ama qof u sii nolosha kula sii wehelayeesho oo maaragtay uu naagtiisii uu ku sii suga dabcan waxaan dhahay bay tiri waan carooday waan xanaaq kadib waxaan idhi bay tiri waan kaa tegayaa guriga waalidkay ayaan tegayaa ilmahaaga yarkaana iga qabso adiga calashaan weyn oo kala dhamaatay camal marka wuxuu igu yiri bay tiri walaalay iska kee cafi maanta oo kaliya i cafi oo maaragtay yacni iska kee cafi uu ibariye iska kee cafi buu yiri laakiin dhibaatadu waxa weeyaan bay tiri waan ka aqbalay bay tiri cafiskii oo guriga waalidkay ma ana aadin bay tiri dhibka marka ugu weyn gabadhu halkaan uu ka bilaabanayaa oo aan isiri gabadha mushaakilka ugu weynba halkan ayuu ka bilaabanaya qofka markaad cafisid waa inaad min qalbiyan u cafisaa waabid cafisa soo maahan dhibaato walba oo aad ku aragtid haddii aad damacda inaad cafisid waa inaad ma ilaaweysid oo wixii si dhaqso leh maskaxdaada kuma baxayaan laakiin tareegare maadaama qofkii aad cafisay dembiga uu kaa galay aad ka cafisay waxaa isku daydaa in maxaa ku rahdaa aad is-ilowsiisid wixii uu kugu sameeyey laanoo waad cafisay haddii laakiin aad tiraahdo waan marna aad tirahdid yacni maskaxdaada aad tirahdid isagana waa cafiya aad tirahdid maskaxdaada in aad qaab kale aad u haysatid oo aad tirahdid see waxaan iigu dhaceen see waxaan iigu sameeyey aniga oo maskaxdii gudihii aada ka cafin laakiin afkii aad ka cafisay taas waxay kuu noqonaysaa inaa adiga stress aad ka qaadid waana meesha hadda soo socotaa waxay tiri waan ka aqbalay cafiskii laakiin weli bay tiri qalbiga ayaan ka gubanayaa waa waxa inii sheegay weeyaan qalbiga ayaan ka gubanayaa bay tiri waxaan hayaa bay tiri oo aan telefoonkiisa aan kala baxay codad badan yacni uu naagta kula sheekeysanayo uu kula hasaabaye walaal macaanto dee codadka maxaa adigu ka doonaysa nin naag uu la sheekeysanayo ma bariis baa la wada cunayay ma baastaa la wada cunayay dee balaayo dhan buu u sheeganayaa waa faarax alteed faarax waa kuu dhimanayaa iyo waa ku jecelahay iyo naag ma qaba haddii la doono waxaa la iska soo goynayaa naagba uma qaba carruurna weligay ma dhalin maxaa kugu dhacay walaal macaanto codad badan ayaan hayaa bay tiri wuxuu leeyahay ceebteeda astur gabadha aabaheed baan ahay weliba ala dartiis igu cafi ayuu yiri bay tiri iyo gabadhayda darteeda wuu igu ooyey gar iyo jilib ayuu i qabsaday mar dambe kuma laabanayo ayuu i dhahay maxaan ku idhaahdaa yacni saa igu cafi gabadha marka su-aasha waxa ugu dambeeyay ee soo qorto waxa weeyaan gabadha aabaheed muxuu ii dhahay de gabadha aabaheed muxuu ii dhahay gabadha aabaheed wuxuu ku yiri adu ilmahan dhashay soo isaga ma dhalin ilmahan dhashay horta isaga dhalay oo waa
ilmaha aabbu u yahay wuxuu ku leeyahay calashaan ani haddii adiga iga niyo jabtay ilmahayga dartood igu cafiyey sa anigu u fahmo weeye sheekada marka sheekadu waxay ka qurunsan tahay waxa weeyaan haddii uu cafis uu ku weydiistay aad cafisay marka hore se aad markaad hawshan aad ku aragtay aad ku tiri walaal macaan anigu dhibaatadan aad igula kacday waxaan aad igu samaysay iyo intaad maqnaa anigu waan ku sugayay adiguna saana ii gashay yacni xaq ma ahan oo aad xaqaagii aad ka qaadato oo intaa hadli karta hadashay oo runta u sheegtay uu ku yiri cafi kole aniga run ahaan ah waxaan kugula talinayaa marka ugu horeysa uu qalad kaa galay maadaama ay tahay ninkiina ay isku cusub tihiin oo muddo hadda aad kala maqneedeen oo haddana uu soo laabtay walaal macaanta anigu waxaan ku dhihi lahaa codod iyo naag la keena iyo naag baxda toona adaa ka muhiimsan adaana ka qaalisan aduna ninkii kula joogaa naag hadba naagtii lala joogaana qiimo badan ninka maalintu kaa baxo albaabkaaga dhaafo u kaa baxo ninkaagii ma ahan ha ku xisaabtamin gabar walbay ninka maalintu kaa dhaqaaqo u kaa baxo oo banaankaa aado ninkaagii ma ahan intuu laakiin ninka gurigaaga ku jiro ninkaagi weeyaan midda labaad oo gabdhaha aan kala talinaya waxa weeyaan horta gabadha abaaya waxaan leeyahay iska cafi maadaama ay tahay maalinta kuugu horeysay uu qalad kaa galay iyo cafina uu ku yiri uu ku bariyay walaal macaanti iska cafi adduunka wax walbaa dhacaan waana lis cafiyaa laakiin khaladkan mar dambe khalad kale oo lamid ah iga gelindhe ama mid ka daran yacni waxaa kala qorataan maxaan ku raahdaa war cad kala qaata dhib isaga midda kale aan kugula talinaya adiga iyo gabdhaha kale ee idaawan doonay guurka ku cusub waxa weeyaan jab anigu aan soo maray ayaa meeshan ku jira waxa weeyaan jabka aan soo maray telefoonada la baarayo maxaan ka dhaxlay maxaan ka arkay haddaad soo codsataan mar walbo fiidiyoyaashayda hore ee dhiirigelintahayd waxaa inigu baraarujin jiray naag aan soo jabin مكب مطو والله العظيم ناك أن سوجبين مجرتو ناك والباكان سو استاكتو أو تراهدو أنو فريد بان هاي شن دام بان هاي أفر دام بان هاي ببببب تتتتا نينك محان كورا هذا مفيري نينك مدني دنكيا وناك سوجبتو ويان ناك أن سوجبين خفك بين آذن كا فيري هادي آذا وح انتا تريجريسيد أو وحي أوسكاها لابين أو مرلبا تريجريس أوسكاها لابين مبرني سقابك وحان لو سميو مركا داد كان تيفيada iyo telefoonada iyo darbiyadani waxa dhisay kulli practical soo sameeyeen waa soo jijibiyeen dib bay u soo dhiseen intaasoo jeer wax jibinaya oo practical sameynaya ninkay naagta isqabana saas weeye practical la isku sameeyaa sanadaha ugu horeeya aniga marka telefoonkan la baaraayo jab badan baa iga soo maray hadaa rabtaan inaan iniga soo sheekeeyo qayb kamid ah nolosheedii markaan qurbaha imid iyo qaabka aan yacni marxaladihii guurka oo adka aan soo maray waa iniga soo sheekeen doonaa inkastoo ay sheeko dheer ay tahay gabadha markaa iyo gabdhaha kaleba waxaan advice ku siinayaa ama aan ku wacyigelinaya ninku qaba telefoonkiisa walaalaha baarin haddii aad rabto caafimaadkaaga ma rabtaa inaa caafimaad ku noolaato ma rabtaa ninku qaba telefoonkiisa ha isku baarin ha isku fiirin ha isku mashquulinin okay ninkan haddii uu naag keensado uu naag maaragtay kale uu keensado uu naag baan guursaday maalintuu kule naag baan guursaday wixii go-aanu aduu aa gaari karta ka gaar inta ka horeysa soo maahan walaal macaantu ha isku mashquulinin waxaa laga yaabaa nimanka qaar baa iska shaxaariyaal nimanka qaar baa afka noolayaal oo afka maaragtay hadda naagta aragtay hey afka iskala gala laakiin aan niyad ka ahayn nimankaasna waa nimanka ugu aanba guursanba nin aamusa ma aragta adigu oo shib ah oo saas hoos fiirinayo kaas ka baq kaa iska ilaali ka taxadar laakiin kan qeylqeeliyo hadba meel ku boodo waa af sharmuud baa la yiraahdaa afkaas wuxuu ka yahay maanta oo dhan sharmuud ka yahay hadba naagtii kasoo horbaxdo buu afka la gelayaa tii kasoo horbaxdo waxaan ku irahdaa uu abgar ku nasiib soo samaynayaa maxay ka tahay mataqaanaa faduul bay ka tahay kan aamusan baa ugu daran maska maxaa la yidhi dameerka kan ciyey kan aamusan kee daran kan aamusan baa daran haddaba telefoonada ragga aa baaranaysaan iska joojiya waxbaa ka faa'iidaysaan wax aad ka faa'iidaysaan oo problem iyo mushkilad aan ahayn ma jirto iska ilaaliya ayna leeyahay tala kale haddana meeshaan ku haynaa insha allah abaayada horta wixii commentiga usoo qoraysaan usoo halkan commentiga uu soo qora talada gabadhan abaaye macaan aniga wax dhib big deal waxyaalahan kale uma arko problem gabadha hadda ay sheeganayso maseer baan u aragnaa maseerna wax weeyaan waa wax jira oo gabar walbaba maseerka uu soo maraa uu soo galaa waxaan u soo qaatayna waxa weeyaan waxaan rabaa
إن قلبك جبدان وقبوه يعني بيج كان يسقط وبيج عاد وقابن واي لكن وحرما إن وقلبك وقبوه جورج هذا لقطمها دامي إتهاي رير عصب إتهاي فريتان وح لو بدك دقة معهن كلا تجتان إيو رير البربري وح لو بدك دقة معهن وح قروح بدنا معها قبر والبحث كذا قروحون تها مجرد جورجي كوب لعبتي إن كل ما يسطو نك كوب لعبتي إن كل ما يسطو هل الماء اسكو نوعه إن إيش اسكو آباء إن إيش وح كذا قروحون تها مجرد marka waxayna leeyahay inta u samri kartaan u samra abuse ogolaanina bahdilha ogolaanina maxaan ku raahdaa isku tumasho lagu tuntaha ogolaanin xaqaaga in la cunaha ogolaanin laakiin waxa ogolaataa in maaragtay waxyaalo badan adigna ka tanaasushid si reerkaaga uu u dhismo de baarina noqda gabdhow ragina baariyaal u noqda raaliyaal noqda si iyaguna raali inigu noqdaan aad baa idin salaamaya waa walaashin ruumi janaal inala inta fiidiyoogani fiidiyo lamida aan ku kulmi doono waxaan iiga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah